baraaruga dadkaygaanidha boqol kunoo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan beelaadaadini. bismillahi raxmaan raxiim. halkaan naga daawanaysan waa youtube-ka Zakariya Qaran. daawadayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba noo maqashaan, waxaa idin leenahay maalin wanaagsan. haddii maalin kuu tahay, haddii habeen kuu tahayna habeen wanaagsan. waxaan ku xasuusinayaa fadlan haddii waqti salaad la joogo, salaada duko, video stop dheh, salaad soo duko, kadib daawashadaada dib ugu soo noqo. waa mahadsantahay meel walba aad joogto. maanta waxay waa barnaamijkeenii toddobaadka maxaa akhrisay. maanta waxaan soo qaadanaynaa tijaabo uu sameeyay caalimka weynaay oo muslimka ah oo saynisyahanka Ibn Sina. inta muuqaalka la guda galin daawada aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad la galo saarto, sidoo kalena aad sii share gareyso si saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale uu muuqaalka u gaaro. mahadsanid. Ibn Sina ayaa wuxuu tijaabiyay laba wan ayuu soo qaaday, soo waday meel buu keenay, laba wan oo isku daa ah, isku dhirir ah, isku wax walba wadaagaan sifooyin. meel ayuu ku xiray labada wan, laba shabaq oo quful ayuu ku xiray, mid walba wuxuu siinay raashin isla mid ah iyo cunno isla mid ah. kadib koriimadooda iyo da'doodii iyo waxooda hal mar ay isla mid ay ahaayeen, wax nuqsaan iyo wax kale ma ayna ku dhicin. markii dambe caalimkii wuxuu keenay yeey, wuxuuna ku xiray shabaq, mid ka mid ah wamankii ayuu aggeeyay, kii kalena wuu ka qariyay. muddo kadib raashinkii iyo wixii uu siin jiray labaduba si same ayuu u siiyay. kadib wuxuu caalimkii tijaabiyay, wuxuu ogaaday wankii kale oo yeeyga arki jiray maalin walba inay ku dhacday nusqaan, koriinadiisana ay yaraato, walwalkiisana oo batay. muddo kadib wankii ayuu iska dhintay oo yeeyga arki jiray, kan kalena wuxuu noqday wan weynaado, aad u weynaaday, biridiisana aad ay u kortay. caalimka wuxuu ogaaday, tijaabadu ku ogaaday in nolosha caafimaadka ay muhiim u tahay walwal la'aanta iyo ka baqida waxa aad ka baqayso. walwalkana sababta kaliya wanka u dhintay wuxuu ka cabsanaya mar walba yeeyga oo arkaayo, waxay ku noqotay in wax walba oo la siinayo koriimadii inay kori waayo walwalka iyo cabsida darteed. marka caalimku wuxuu ogaaday maskaxda bini'aadanka inay wax walba maskaxda ay yihiin in walwal la'aan iyo cabsi la'aan marka ayna jirin inay xaaladu caadi ay tahay, qofkuna uu noqonayo noloshiisa si normal ah. marka daawadayaal waa muhiim ah mar walba inaad iska yareyso walwalka iyo nolosha Allah subhanahu wa ta'ala tala saaro, wax walbana Allah xaqiisa ayay ka yimaadaan. cabsida badan iska yaree. waad mahadsantihiin meel walba aad joogtaan. bye bye. baraaruga dadkaygaanidha boqol kunoo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan beelaadaadini.